السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا هالكن وبولا الميديا وعلى بعض نوجا برتين برامجيين حيسة جلية ومركلة هي مقالدني برامجيد هو كدوم يهي وهعاون مرتين نوجا أكتر كوين إلهي بوين واحدة أنت بدن جيجا دلك كينيا أما جارهان مقالة نيروبي كالصعام بحي في الماضي يقابك وشليو أفلانتا وحدو جيدين هندي أنت بدن صومالو أي دعوته لكن هذا ولا جتك سلمان خاني سيف علي خان ستار معاه برامج كمرتين نوعه أو نقصد ويننا ولا الميديا ولا بكرة قصد وين كله ولا الميديا. أدبر ما سنت أبوان وهذا هاي وكله هاي ولا الميديا. ما شاء الله أدبر وكأجمع هاد علينا الناس إذا قرح ضبطن إيه ونقصنا نقص الشبتي إن أدبر الميديا المرتين نوعه نقطة عاوة إن داود يال برامجكو وكدوا يهسانو ديش أجنبي برامج دي هراء وحنا عاوة كأسوني ولا الكي أو أكثر شلاء أنت بدنا فيلمانت أدو شلاء وحنا ربنا إن نعاوة كورة يسمى تاريخ نولد كيسي إيوه إنك بدنا بس كده بديهين فيلمانت أنت بدنا بس كده بديهين روح يافر بدنا بلاقيكم أيوه وكلا كل ماي أنتوا وكل إحتري حولها فانك أما فلانتا ولا مرة بتكسر هو أدبر ما سنت وهذا هاي وأنا أدبر كامل علامات أنا كور فدي عوان ورئيس كل يوم ما يدري. أنا ورئيس كل أدبر وكأجمع هاد علينا وأنا كفرح صناعي أنا مرة سوى فريس سيد برشادة اللي هو كتير تاريخ نولد كان بالكوكر كسو ومجا عاجة يتاريخ نولد كان في العالم. مجا عيجو صدحنا وعبد الستار أحمد سهل. إن حدود دي سكودو أنت دقمة أفمدو. إن ضد كيجات بعدين سلام يا. إن نولجز أنت دمبنا كسو وحضرتي كسو ماركتا وين هذه بركن كينيا. صح. إن ورنوهانتي هوبكي وهانجري إن مر كان بركسهم بقول. on sameeyni karo صح sida Soomaalidu u taqaan wax film ah dadba hadba bin aadanka dad arkaysid qofba hadba si buu dad ku dhiirigeliyaa صح qofba inta ku imaado wajiga dhiirigel wax ku sheega صح qofna waxa laga yaabaa inuu fanaan yahay oo hees ku soo qaadaysa dhiirigelin kaaga dhigo codkiisu wacyigelinta ku wacyigaha uu gudbiyo si fiican qofna waa actorkiyo sheekada inuu ku soo gabgabeeyo طلعيا وينو شرحنا الجلين جلينها أو مقالة صح سيد واحد دحين يو ماركت أرنتي أو سيد ده سفيان ماركا and واسدس أوكي أدبد ما سنتهاي وحرنا هنا كويدينو تاريخ نولات كاجا يقاب كأضو بالوضي مركا إنه كجود منه مركي كوجوه الرئيسي عاد فيلم تشوي فيلم كي كوجوه الرئيس تشحل جواه فيلم كي يجوه ري أسميه وحو أخاف وقتيgaasi waxay ahayd 2014 asagoo dhameystiran wuxuu soo baxay 2015 صح bulshadana wuxuu soo gaaray 2016 oo film wuxuu ahaa juhdi ban la geliyay صح aadna ma aragta waqti dheer noo qaadatay in sameyntiisa aan sameeyno qoridiisa iyo sheekadiisaba waxaa iska lahaa yar aan dadka salaamay saaxiibkay Cabdiraxmaan Yuusuf Jawxa aadbaan ku Cabdiraxmaan waa saaxiibkeena waan garanayaa aadbaan kula salaamaya wuxuu ahaa filimkii ugu horeeyay kow filimkaas oo la magac baxay Sarqaan oo bulshada badankeeda ma aragta aad u soo jiitay صح haddana hawada social media ku jira صح kaas oo ahaa filimkii ugu horeeyay qaybteed ka jirisay markaad waxaan ku jilayay qayb rol wuxuu ahaa nin taajir ah صح oo ay ma aragta taajirnimadiisa uu ku lifaaqin yahay ninka cadawga ka ah filimka in ay asaga labadaas ganacsi ka dhaxin jireen صح ganacsiga lagu heshiin waa darteeda wadankii wada joognaan ka soo tagay wadan kale imaaday si fiican sida darteeda wuxuu sameysanayaa qof asaga khaas u ah oo hantidii anigii iga soo raacday ugu soo ceshan karo oo qofka taajirka sameysanaya marka filimka صح marka rol waxaan ku jirayaa taajirnimo iyo maaragta qof lixdiis laxaad qaba bir loo dhigo curyaan la yariyana aad ogtahay xarkeeda si fiican marka curyaannimana waa ku jilay okay orad baan watay labadeeda lug baa ulka la wadar aad ma santa qaybtaas aynu yar dul istaagayna waxaan rabnaa mugtay wax kasta oo la sameeyo caqabad bay leeyihiin oo waxa laga yaabaa qof kasta markuu qofku wax uu sameynayo ama uu jilayo ama uu rabo inuu wax la yimaado fikir cusub oo hal abuur ah كل عقبات بقول كلمة وكل وحين بهور استاج نكستو وقول قارين وحور استاج ما وايد ماشي كوجود الريد أنت في المدة تشريس
ma la is dhihi karaa filimkaasi qayb kamid ah bay ahayd maadaama adigoo caafimaad qaba oo fiyo curyaan aad matalaysa ha wayba ka mid ahaydba oo waxaaba ahaydba in dee bir la ii dhiibo anigoo 6 lacag ku socdo sax birtaasna aan ku dagaalamo ku difaaco noloshayda aan isdareensiinin inaan jiis ahay oo aan dareensiin karo qofka jiiska ah in uu ku dagaalami karo labadiisa gacmood hadduu lagiisa layahay way adag tahay qof labadiisa lug ku taagan oo xayi ah in bir loo dhiibo sax haddana kusii dagaalamo dhaho ninka cadowgaaga iska celi lana rabo dhulkaas uu ku dhacayo inaysan birta u fakarin fiiraha u galin sax in maaragta uu dhib ka soo gaarin uuna sameeyo qaab qurux badan sida qofka jiiska ku dhashay u sameyn karo aad bay u adag tahay walaantii 2 daqiiqo ahayd waxayna noo qaadatay 7 maalin 7 maalin 2 daqiiqo 7 maalin bay noo qaadatay waxa isla sameeynay qaybtaas Xuseen Kaafi kaafi halka baka salaamayna isagana dadku inta badan filmaanta way daawadaan oo way ku qoslaan oo way iska dhageystaan oo way ku farxaan oo laakiin ma garanayaan dhibka laga marayo qaabka loo sameeyo dhibka laga marayo filimkaas waxay nagu qaadatay 12 bilood inaan sameeyno waasan hal bil ka dhaw waasan hal bil ka dhaw waa hal film oo socdo 56 daqiiqo ah sida filmaanta weyn oo aflaanta weyn dadka Hollywood ka sameeyaan camal sax loo sameeyo 12 bilood baan sameeynay intaas scene oo filimka dhexdiisa la sameeynaa filimka ugu waqtiga badan qaatay qaybta waqtiga badan qaatay waxay ahayd qaybta 2 daqiiqo aan kala hayo oo aan langarnimada birta aan ku jiisayo socdo oo 7 maalin nagu qaadatay waan 2 daqiiqo 2 daqiiqo kaliya aad baad ma san tahay waxaan rabnaa inaan kala ku weydiino intii aad ku dhex jirtay jiritaanka filimada ama samaynta filimada aflaanta kulba sida loo yaqaano wixii aad ka faa'iiday adiga shakhsi ahaan sataar ahaan ورن هانتي ورت فائدوينك way iska badan yihiin صح dunida hadda la joogana wax la sameesto oo la abuurto waxa ugu wanaagsan bini'aadam aad weyn ama qaab wanaagsan ku sameeso صح ama qaab kale oo adiga qaas ku aad garan kartid bini'aadamka dadka ay kugu jeclaan karaan ku sameystid صح faa'iidada weyn aniga aan ka heli karo waxay tahay faa'iidada weyn oo aan ka helay waxay tahay in maanta bulshada ay wajigayga taqaano si fiican wajigayga garanayso صح maanta haddii ma aragta aan wadanka aan joogo wadan kale oo geeska jir aan tago in dadka Soomaalida ku nool صح oo baraha bulshada ku xiran wajigayga ay soo qaban karto qof kasta uu ku leeyahay waa sataa waa wiilkii filimka aan ku arkaa marka faa'iidada aniga horta barashadu waa koobi ka tahay in macna lagu aqoonsado oo meeshan bartibuujiga baasbad ku noqdo meel isku mirkirti sax si fiican marka faa'iidada weyn aniga aan ka helay waa taas oo bulshadaas iyo dadkaas ugu joogna ma la isdhihi karaa in dhiirigelin oo kale iyada la fikirada waad ka heshay in qofka bini'aadankii moogtay markii uu shaashad yimaado ama uu wax curiyo ama wax hal abuur la yimaado inuu hadhow naftiisa kalsooni wuxuuga inaad kalsooni hesho way jirtaa waxaba jirtaba markaan inta ku sameeyay filimka inaan qaadno oo aan geeyno Gaarisa sax oo idaacada qaar aan ka dayno sax waxaa jira in uu soo wacay oday ka mid odayaasha magaalada ku nool sax oo iga wareystay dhiirigelinna ma aragtaa weynna ka qaatay soona daawaday iguna yani dhiirigelin weyn ka qaatay xogaan wuxuu ahaa kursi ku fadhiyo si fiican oo madax markaas marka kursi ku fadhiyo xogaan lixaas aan taabaan wuxuu igu mahad celiyay yani inuu dhiirigelin ahaan ay u noqoto dadka awoodda lixaad aan dhameystirneen ay weli رجل ليه فرصة استنى يلفتوا كالنت كده يكسب واحد يكسب بدين عارف الدودة صح مركا تاس باجرتني بيقولنا يا نقطة aad baad mahadsantahay tahay aad baan kaaga mahad celinayna mar labaad iyo mar saddexaad ba sida quruxda badan barnaamijkan looga ajiibtay barnaamijku waa gabagaba guntiga gabagabadeena ku soo durkaynaa satar waxaan rabnaa inaan ku weydiino wax yar oo ku saabsan tar noloshaada adiga weligaa jacayl ku dhaxay kal ilaab ay jacayl wali ahawli oo aan inaba caadi ahayn ma umaleynaayo qof Soomaali ah inuu ku dhaca jacaylkaas jacaylka noocaas aan ku guuleysatay kuma guuleysan wali guuleystay laga guuleystay ay kuma aan guuleysan wali guuleystay wax saameyn ma kugu yeeshay marka hadda ilaa aad noloshaada oo kal ilaab dadku waxay dhahaan ma iloobaan jacaylka
kugu horeeyo maarata صح first love صح فصلة qofka inuu noloshiisa way ku intaay ma iloobi مركز karo روح وصل نوع de waa jacaylka kugu horeeyo ibad صح kusoo maro صح oo jacayl micnihiisa fahamtay qofkaas ku fahamtay أيه marka waxay waa maskaxdeeda marka qaar waa wax ay dibdib u laabataa ما شاء الله هذا حسب بقول كل ما معنا كرر الله أنت أدب ما حسنت هاي مرة بعد مرة تعبت سيد قروح بدنا نوجا شفتي برامجكو وهل كان نجلس عتمة بولا الميديا وحانو إذا لا ما هي برامج كان برامج نبدأ أنت أنو إذا كل بدورنا سدا nabad geliyo أمانة الله